qaybtii labaad ee barnaamijka dil ama qabasho waxay inoo joogtay iyadoo Shanklin iyo madaxii isaga ka sareeyay ee halis daran ay ku galeen xaafadda Barmuudo ee degmada Howlwadaag. Shanklin wuxuu si dirqi ah kaga baxsaday in la qaarajiyo maalintaasi. geeridii Ibrahim kadib xubno ka tirsanaa CIA-da ayaa rumaysnaa in halkaasi ay ka baxday rajadii ahayd in Shanklin uu awood u leeyahay in basaasiin Soomaali ah uu ka dhex abaabulo Soomaalida dhexdooda. hase ahaatee Shanklin wuxuu si dhaqso leh u garwaaqsaday in ninkii uu shaarka dhiigga lahaa kaga beddeshay isbitaalkii Maraykanka kolkii Ibrahim uu dhaawac ahaa uusan ka yaraysan saaxiibkii geeriyooday waa Ibrahim Xuseene, isaga oo ninkaasi ka codsaday inuu buuxiyo booskii uu baneeyay Ibrahim. Mike Shanklin wuxuu weydiistay Garrett Jones oo taliyihiisa ahaa inuu ku daro rag CIA-da ka tirsan oo aanan badnayn si ay u degaan gurigii ganacsada Ibrahim Xuseen oo ku dhawaa garoonka kubadda cagta ee Conis Stadium oo maanta loo bixiyay Engineer Irisow. garoonkaasi ayaa safaaradda Maraykanka u jira 15 mayl. qorshuhuna wuxuu ahaa si loo dejiyo qidadii ama qorshihii lagu soo qaban lahaa Generaal Caydiid. kooxdani waxaa ku jiray 4 nin oo aad u hubaysnaa kuwaasi oo ka mid ahaa ciidamada Navy-ga Commandos-ka Maraykanka, laakiin ma ahayn rag isu hortaagi karay haddii maleeshiyaadkii Caydiid ay 4 jiho weerar ka soo qaadaan. Shanklin wuxuu halkaasi ka bilaabay in rag Soomaali ah u tababaro basaasnimo ay kula shaqeeyaan CIA-da, kuwaasi oo loo tababaray inay soo sheegaan goob kasta ay ku tuhmaan Generaal Maxamed Faarax Caydiid. tilaabadaasi oo qaaday Shanklin waxay ahayd mid halis ah, halka kooxda uu isaga hogaaminayana aysan si fiican u saantiran. Shanklin wuxuu sheegay inuusan weligii meesha ka saarin in raggii uu tababaray ee Soomaalida ahaa qaarkood ay xiriir dhow la leeyihiin Caydiid. raggii uu hogaaminayay Mike Shanklin oo Soomaalida basaasiinta ah ay ku jireen waxay isku diyaariyeen qorshihii ama tabtii markaan lagu soo qaban lahaa Generaal Maxamed Faarax Caydiid. kadib Shanklin wuxuu go'aansaday inay degaan gurigii uu ka geeriyooday Ibrahim Xuseen oo waqooyiga Muqdisho ku yiil. kooxdii sirdoonka Maraykanka uu Shanklin hogaaminayay waxay anteenooyin tiro badan ku xirteen gurigii ay degeen, taas oo keentay in dadkii Soomaaliyeed ee hareeraha gurigaasi deganaa ay u bixiyaan gurigii CNN-ta. 3 toddobaad markii Shanklin uu meesha howlgalka ka waday ayaa mid ka mid ahaa basaasiinta Soomaalida ah wuxuu Shanklin dhagta ugu sheegay in Generaal Maxamed Faarax Caydiid uu og yahay in xubno ka tirsan CIA-da ay ku jiraan guriga CNN-ta. Shanklin wuxuu markiiba si degdeg ah u wacay taliyihiisii Jones wuxuuna ku yidhi, Garrett may maqashaa sheekadu waa ay xun tahay ee naga bixi meesha, halis ayaan ku jirnaa, si dhaqso ah inoogu soo dir gurmad degdeg ah fadlan, waxaa la ogaaday inaan halkan ku sugannahay, may maqashaa mudane. Shanklin iyo 4 nin ee ka tirsanaa Commandos-ka Maraykanka waxay markiiba orod ugu baxeen gurigii ay deganaayeen iyaga oo hubkooda uun horay u sii qaatay, waxayna orod ku tageen garoonkii Stadio Conis. 20 daqiiqo gudahood ayay diyaarad helikabtar ah u ka soo kacday garoonka diyaaradaha Muqdisho waxay ka daadguraysay Shanklin iyo raggii la socday Conis Stadium. Shanklin wuxuu sii waday xiriirkii uu la lahaa ragga Soomaaliyeed oo u tababaray basaasnimada, kuwaasi oo mar dhow wacdaro muujin doona iyo qiimaha CIA-da ay leeyihiin maxayse tahay wacdaradaasi. markii Generaal Caydiid uu noqday nin aan la heli karin oo marba bari iyo bugux laga soo sheego ayay basaasiintii Soomaaliyeed Shanklin u sheegeen inay heleen nin maalin walba la kulma Cusmaan Xasan Cali Caato oo kaalinta labaad kaga qornaa liiska ay raadinayeen Maraykanka. lama shaacin ninka la helay magaciisa, waxaase la xusay inuu ahaa nin degan waqooyiga Muqdisho, saaxiib dhowna la ahaa Cusmaan Xasan Cali Caato. Shanklin wuxuu basaasiintii Soomaalida ahaa faray in bakooradii qalabka ku xirnaa ee lala doonayay in hadiyad ahaan loogu geeyo Caydiid ay u dhiibaan ninkaasi si uu ugu geeyo Cusmaan Caato. ninkii ayaa gaari ka soo raacay waqooyiga Muqdisho
wuxuuna saacad kadib u yimid cusmaan caato ay ballansanaayeen. dabadeed ninkii cusmaan caato ayaa gaari kale soo qaatay. gaarigii ayaa muddo yar kadib istaagay kaalin shidaal. Shanklin waxaa daqiiqadahaasi gudahooda ku soo wacay raggii Soomaaliyeed uu isaga tababaray, kuwaasi oo ku wargeliyey in caato uu ku dhex jiro gaariga. Shanklin wuxuu durbadiiba codsaday ciidamadii Delta Force kuwaasi oo ka soo kacayay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. helikabtarada nuuca loo yaqaan shimbiraha ayaa markiiba gaarigii ay saarnaayeen cusmaan caato iyo ninkii kala haleeshay. ciidankii diyaaradda saarnaa ayaa diyaaradda iska soo laalaadiyey iyagoo hoos u soo daadegaya. mid ka mid ahaa ciidankii Maraykanka ayaa markiiba gaarigii ay saarnaayeen cusmaan caato iyo ninkii kale wuxuu ka toogtay dhanka matoorka si uusan gaariga si xawli ah u sii dhaqaaqin. markiiba ciidankii Delta Force waxay gaariga kala soo degeen cusmaan caato ay jeebo ku dhufteen. waxayna ahayd markii ugu horeysay taariikhda ciidanka Maraykanka gaari dhaqaaqaya ama gaari socda ay kala soo degaan qof. waa sida uu sheegay Shanklin. qaabkii CIA-da ay u qabatay cusmaan caato waxaa aad u bogaadiyey General William F. Garrison oo ahaa taliyihii ciidanka Delta Force ee Muqdisho ku sugnaa xilligaasi. hase yeeshee guushii ay CIA-da ka soo hoysay qabashadii caato ma noqon mid sii waarta. wax yar kadib 2 toddobaad waxaa qarxay dagaalkii 3 Oktoobar oo loo bixiyey Battle of Black Sea. waxaa dhacay halaag lagu muujiyey filimkii Black Hawk Down. furuntii dagaalkaasi waxaa ku laaday boqolaal Soomaali ah iyo 18 ka mid ahaa ciidankii Maraykanka. wax kasta oo siyaasadeena ahayd maalintaasi ayay dhamaatay ayuu Shanklin ku calacalay. fadeexadii ku dhacday CIA-da uu Shanklin mas'uulka ka ahaa waxaa ka mid ahayd markii ay u dhaceen guri ku yaala waqooyiga Muqdisho oo ay ku shirayeen waxgarad ka tirsan qabaa'ilada degan Muqdisho. basaasiintii Soomaalida ahayd ayaa Shanklin u sheegay in gurigaasi ay ku shirsan yihiin Generaal Caydiid iyo odayaal kale. ciidankii Maraykanka ayaa markiiba halkaasi u ruqaansaday ayaga oo guriga ka soo galay 4 jiho. ciidamadii Maraykanka waxay halkaasi ka soo xireen Generaal Axmed Jilcow Caddow ay u maleynayeen inuu yahay Caydiid. Generaal Jilcow wuxuu markii hore ku adkaystay inuusan ahayn Caydiid. hase ahaatee markii ay u caddaatay in ciidamadii Maraykanka ay handadayaan ayuu wuxuu naftiisa ku badbaadiyey inuu yahay Caydiidkii ay doonayeen isaga oo ka cabsi qabay in halkaasi lagu qaarijiyo. Generaal Axmed Jilcow waxaa la geeyey siligii Maraykanka ama safaaraddii Maraykanka ee Muqdisho, halkaasi oo saraakiishii qaramada midoobay ay ku faraxsanaayeen soo qaabashadii Generaal Caydiid. waxayse farxaddii iyo dabaaldegii saraakiisha isu beddeshay fadeexadii ceeb, waxaana halkaasi ka dhacday kabtay ma aragteen. markiiba waxay saraakiishii la yaabeen inay arkaan Generaal Jilcow oo ahaa ninkii ay la doonayeen inuu noqdo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya oo gacmaha ka xiran, midkaasi oo ciidamadii Maraykanka ay soo duleysteen. haddaba warbixinadii ay soo gudbinayeen basaasiintii Soomaaliyeed ee doonayay inay helaan lacagtii abaalmarinta ahayd waxay CIA-da ku tuurtay qaladaad aad u tiro badan. qaladaadkii ay CIA-da galeen waxaa ka mid ahayd markii xafiiska CIA-da loo sheegay in 2 nin oo ilaalo u ahayd Caydiid ay diyaar u yihiin inay sheegaan meesha uu hogaamiyahooda ku jiro. Garrett Jones oo madaxii xafiiska CIA-da Muqdisho ahaa ayaa kadib u diray Isbaneeli oo ahaa ku-xigeenkiisa inuu la soo shiro raggaasi. markii Isbaneeli uu marayay xaruntii warshadda baastada ee Muqdisho ayaa dad taageersanaa Caydiid waxay xabadeeyeen gawaaridii CIA-da ay wadatay. waxaase si xun u dhaawacmay Isbaneeli oo sheegay inuu ku sigtay in maalintaasi la dilo isagoo u arkay inay ahayd qorsho shirqool oo loo dhigay iyaga. Garrett Jones iyo Isbaneeli waxay labadooda u aqoonsanaayeen Ibraahim Xuseen inuu yahay qabqabale dagaal oo iyaga la soo shaqeeyey, hase ahaatee waxay qireen inuu qiimo sare ugu fadhiyey. dhanka kale CIA-da oo kaliya ma ahayn waxa uu gaarsanayay Caydiid. markaan eegno Talyaaniga wuxuu bulshada Soomaaliyeed ku dhex lahaa kaadiriin u adeega iyaga Talyaaniga ah. waxaa dhammaantood ku adeegan jiray taliyihii hogaaminayay ciidamadii Talyaaniga ee joogay Soomaaliya sanadkii 1993 midkaasi oo lagu magacaabi jiray Bruno Leo. Bruno Leo wuxuu Soomaalida dhexdeeda ka helay xog rasmi ah oo sheegaysa halka uu ku dhuumaalaysanayay Caydiid. wuxuu Leo wacay sida uu sheegay lafahantiisa hogaamiyihii ciidamada Maraykanka Admiral Howe una sheegay inuu si sahlan ku soo qaban karo Maxamed Faarax Caydiid, waase haddii ay dhab ka tahay
inay nolosha ku soo qabtaan ninkaasi. Hello Admiral, waa General Bruno Leo. waxaan hayaa xog sheegaysa halka uu ku sugan yahay Caydiid. waxaase u baahanahay sidee laga yeeli doonaa Caydiid haddii aan soo qabanno. wuxuu ku dambayn doonaa nolol mise geeri. saaxiib Bruno, aniga la ima soo tababarin inaan wax soo xiro, ee waxaan tababar buuxda ku haystaa dilka iyo qaarijinta oo keliya. ee ii sheeg halka uu ninka hadda ku sugan yahay. oo hadda saas miyaa daacad ka ah Admiral? General Bruno Leo waaga ayaa ku baryay uu afka taagay, isaga oo ka yaabay qorshihii Mareykanka ee ku aadanaa qabashadii Caydiid ama qaarajintiisa. wuxuuse arrintii u gudbiyey wasaaraddii gaashaandhigga Talyaaniga oo iyadana u sii gudbisay Jumciyadda Qaramada Midoobay. muddo gaaban kadib, Talyaaniga wuxuu madaxdii Jumciyadda Qaramada Midoobay ka helay amar cad oo loogu sheegayo inay faraha kala baxaan raacadaysiga ama dabagalka Generaal Maxamed Faarax Caydiid. General Bruno Leo muddo kadib waxaa amar lagu siiyey inuu isaga baxo Soomaaliya kadib markii uu dhagaha ka xirtay amarkii lagu siiyey inuu faraha kala baxo arrimaha qabashada Caydiid uu Mareykanka ujeeddo gaar ah ka lahaa. Generaalkii Talyaaniga ayaa loo arkay inuu u xaglinayo markaan dhanka Caydiid, isaga oo looga shaki qabay inuu xog la wadaagay.